Lo yelo ay fogsanayo waa badhaadhe dayaci wakaa soo bidhaanye bishari waa bilqayre. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي زاهد رسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. كان wuxuu ku saabsan yahay dagaalkan dhaqaalaha laynagu soo qaaday dagaalkii diinta dagaalkii dhaqanka laynagu soo qaaday saddexdan dagaal iyo sidii aan u wada maarayn lahayn ayaa maartay dagaalkii matalan diinta haddaan ka bilowno waxaad moodaysaa waxaa socda wax la yidhaahdo dhalan rog wasaaradda diinta oo awqaafta waxaan ku baraarujinaynaa in maaragtay masaajidada qaarkood ay fiiro gaara u lahaadaan waayo waxyaabo aan macquul ahayn ayaa ka socda sida matalan bismi illaahi araxmaani araxiim acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin halkii laga rabay waxaa la akhriyaa bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin al waa laga tagaa masaajidada qaarkood wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaan ku baraarujinaynaa masaajidada qaarkood waxaa ka socda oo ku soo badanaya samica allaahu liman xamdah ayaa ku soo badanaysa waa soomaaliya eeg n f d way ka jirtaa soomaaliya way ka jirtaa waqooyi koonfurba soomaali galbeedna way ka jirtaa jabuutina way ku bilaabatay iminka way ka socotaa meelo badan milyo badan bay ka socotaa waa dagaal toos ah oo diintii lagu soo dhexgalay waa inaan baraarugnaa wasaaradaha diinta iyo awqaafta waa inay baraarugaan masaajidadan dhexgalaan waxyaabaha ka socda waa inay ku sameeyaan censorship waa inay ku sameeyaan waa inay ogaadaan waa inay dhexgalaan ummaddii bulshadu waa inay soo dhexgalaan ayna bulshada bannaanka ka ahaanin waxaa weeye samica allaahu liman xamidah weeyaan samica allaahu liman xamdah ma aha safiin salaadna kuma qorna meel kale ay ku qoranta axaadiista rasuulkana kuma soo aroorin calayhi salaatu wasalaam marka meeshii laga keenay ayagaa garanaya dagaalka kale ee socda jimcayaasha u fiirso maalmaha jimcada khamiis wanaagsan waxaa weeye camaamad wanaagsan laakiin dhoortii sidii gaaladii maaragtay geesahana fiiqan oo dhowr yarna halkaa lagu leh ayaa lagu socdaa waxaad kaloo arki magaalooyinkaasi surwaal dabagaab ayaa miiran ayaa socda magaaladii oo bowdihii bannaanka iska yaallaan oo cawradii bannaanka bay taallaa awi asturaadii miyaynaan ahayn islaam awe dhaqankeenii suubanaa ee soomaalida ahaa awe waa dagaalkii dhaqaalaha kuu soo haray marka dagaalkii dhaqaalaha waxa weeyaan waa inaynu ku baraarugnaa waxayna waa inaynu ku baraarugnaa wax soo saarkayna waa inaynu ku baraarugnaa eeg digaag bariga fog lagu soo bireeyey la soo bireeyey xataa ma naqaan iyo laga kala siibiyaa madaxii iyo loqontii ma garanayno oo bisinka eeba aan lagu birayna bisinka eeba aan lagu dilin yaa laynoo keenaa waa cunnaa misna waa dhibaato hilib adhay oo friis la soo geliyaa la keenaa kartoonna lagu soo guray aw adhigayni mee aw idahayni mee waa dhibaato caana xoolaada la keenaa oo meel laga keena aanan garanayn oo xataa aynaan hubin inay yihiin lo inay yihiin aynaan hubin aw loodayni mee loo fara badan baan leenahay oo meel kasta joogta nft joogta soomaaliya joogta meel walba ka joogta soomaaliya oo soomaali galbeed joogta awe loodan caanaboorahan ee weliba xayeysiinta ballaaran loo sameeya haddaba wax kalaa socda oo ka sii muhiimsan dhalinyaro yaryaroo gidaarada joogo xabagta ku caba daraagiska ku isticmaala wasaaradaha waxbarashada iyo barbaarinta waa inay baraarugaan oo ay arkaan waxaan socda mustaqbalka maxaa ka imaan kara yaryarkani halkooda mama taagnaanayaan way korayaan way weynaanayaan maxaad ka fili kartaa marka ninkaa weyn ee gidaarka ku soo koray oo xabagta iyo daroogada ku soo koray maxaad ka filan kartaa bal ii sheeg wax wanaagsan laga sugi maayo ogow wasaaraddan waa waxbarashada iyo barbaarinta abidkeeda loomaba samaynin waaxdii barbaarinta ilaa laga soo bilaabo waa soomaaliyan ka hadlayaa marka laga soo bilaabo dowladihii ku-meel gaarka ahaa ilaa iyo imikadan maanta
looma samayn waaxdii barbaarinta dhalan rogga kale socda dugsiyadii dalka lahaa waa Soomaaliya halkan ka hadlaya ee magacyadii taariikhiga ah ku qornaa waxaa ku socota dhalan rog ballaaran oo masaxaada si magacaasi taariikhiga ah uu u lumo ayaa socda maxaa kamid ah waxaa kamid ah dugsigii 21 Oktoobar magacii 21 Oktoobar kaliya markaan xusno Soomaaliya muxuu u qabtay dugsi hoose ilaa jaamacad oo lacag la'aan ah baaris caafimaad oo lacag la'aan ah cusbitaalkii oo lacag la'aan ah dawooyinkii oo lacag la'aan ah intaa horta bal aan soo qaadan inta kale hay noo dambayso iyo dugsiyo fara badan macallimiin fara badan oo mushaharkoodii qaata tayo leh waxbarasho tayo leh ee ku salaysan manhajkii dalka ku salaysan oo aan ku salaysnayn manhaj kenyaati ah walaa manhaj imaaraad aan ku salaysnayn daladaha waxbarashada ee ka jira magaalada muqdisho daladaha waxbarashada ka jira waa inay baraarugaano war kenyaati lacag ka qaado imaaraad lacag ka qaado balse aqoontii dalkana bar inamada yararka caruurta yararka aad waxbaraysid bar aqoontii dalka jugraafiga dalka bar dal inay leeyihiin bar bugaagta isticmaashaan jugraafiga ee baddeena dhirirkeeda ku qoran yahay 2800 maxay 200 kilomitir mee waa 3333 kilomitir xeebtanada waa iska qaadateen waad u dhigaysaan waa qalad waana iska fiirstaan waxa aad qoraysaan wax walba lagu keenay inaad qortid maaha waa inaad dalkii bartaa yaryarkan waa mustaqbalkii dalkan hanaan lahaa adigu waad weynaatay waa gabowday waa wada gabownay waaynu ka tegaynaa haddaba dalkan marka sidaa aanu ku wadno hadhowdiyaa hantina ma garanaysaa shisheeyaa hantin doona sidaa weeyaan yani waa xaqiiqo weejaan ee jirta macnaha waxaan haddii dhalan rogga sii socdo beenta kolkay fara badato run bay u ekaataa waa sidaadee marka laga raarido badayna dhirirkeedu waa intaa markuu weynaado badayna dhirirkeedu waa intaa inta kale xaggeen ka keenna buu ka oran waa in la baraarugaa oo dagaalkan laynagu soo qaaday aan ka feejignaanaa oo caqligii aqoontii kaashanaa dhalinyaro barnaamijkan zoomka ardayda wuu idiin furan yahay weydiimihiina haddii alla yidhaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu arday badan baa waxay talo ku soo jeediyeen iyo macallimiinba wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda waxbarashada inay abuuraan barnaamijyadan ka maqan maalan wasaaradda warfaafinta magaalada muqdisho markaan ka soo qaadano waxaa ka furan idaacado 100 ku dhawaad ayaa ka furan waa inay u samaysaa wax la yiraahdo censorship xuriyatul qowlka la sheegayo ma aha wax alla wixii dalka burburinaya in la buunbuuniyo ma aha idaacadaha qaarkood yani waxa weeyaan barnaamijyadooda kulka aad dhageysatid waa burburin waa niyad jibin waa qarannimo diid weeyaan marka waa inay ku samaysaa wax la yiraahdo faafreeb ay ku samaysaa wasaaradda warfaafinta waa in ay wada hoos yimaadaan macallimiintan iyo ardaydan waxay kaloo sheegeen xuriyatul qowlka dunida kama jiro dunida waxay danaysaa haddii gooraale wixii qarannimadeeda dhisaya ayay danaysaa innaguna waa inaynu danaynaa wax alla wixii qarannimadeenna dhisaya ee horumarkeenna ka shaqaynaya ee bulshadeenna garaadkooda kor u qaadaya waa inaynu ka shaqaynaa idaacadaha dhaaya xuriyatul qowlkii baa laynoo diiday waxa weeyaan burburin bay ka shaqeeyaan niyad jibin bay ka shaqeeyaan ummaddii ay niyadda ka dilayaan wax aanan jirin ayay sheegaan oo alifaan cinwaan bay sheegaan hebel baa halkaas ka dhacayo waa in la xadidaa waa in la sameeyaa wax la yidhaahdo cyber control waa in la sameeyaa idaacada ay lahaataa oo waxyaalahan lasoo dhigahaya social mediaha baraha bulshada lasoo dhigaya laftigooda waa inay ku samaysaa wax la yidhaahdo censorship waa inay ku samaysaa sababtoo ah waa wasaaraddii ay hoos imaanayeen wax allaale wixii idaacado ah ay hoostooda tegaya
waxaan filaynaa inay qaadato oo ayadana ay badiso baraarujinta iyo hanuuninta ay ku hanuuninayso ummadda khayraadka dalka ay ku hanuuninayso ha u badnaadeen bay yidhaahdeen khayraadka dalka sida beeraha wax soo saarkooda si dalagyadeena ee qiime ay u yeeshaan xoolaha laga bilaabo min digaag ilaa geela lagu geeyo waxa weeye waa inay u samaysaa xayisiin u samaysaa waayo wixii aanu lahayn weeye hantideenni weeye kalluunka kadaalika ma ahan kalluun bariga fog laga keenay lagu soo daasadeeyey xataa beriyo dhexdaas waxaan idaacadaha aan ka maqlaynay daasado in la soo geliyey shiina soo gelisay hilba dadaaq ay soo gelisay waa waxyaabaa maaragtay dhibaato ah innagana waa la keeni doonaa ama soomaaliya la keeni ama n f d baa la keeni ama soomaali galbeed baa la keeni ama jabuuti baaba la keeni doonaa waxa weeyaan waa inaynu ka fiirsanaa arrimaha aynu samaynayno waxbarashadii baa kuu soo hartay wasaaradda waxbarashadu way shaqaysaa shaqooyin wanaagsan way qabatay shaqooyin fara badanna way u harsan yihiin magacyadii dugsiyada ee ku salaysnaa gobonimadoonkii calankan keenay ee la sii masaxaya waa inay soo celisaa awalan oo 21 Oktoobar ka mid yahay dugsigii ninkii la odhan jiray Saqaawudiin ee SYS asaasay ka mid yahay dhagaxtuur oo 1948 halgankii weynaa ee gobonimada lagu keenay ahaa dhagaxtuur saacid baa la raacay saacid oo maxaad ahayd dhagaxtuur saacid cadra ma garanayno sidaas la mid ah Saqaawudiin waxaa ku qoran saacid cadra ma garanayno saacid cadra laakiin dhagaxtuur waa naqaanaa 1948 halgankii weynaa ee gaalada Talyaaniga gumaysiga Talyaaniga lala galay ayuu ahaa Saqaawudiin waa naqaanaa odayaashii asaasay SYL ee gobonimada keenay ayuu ka mid ahaa waa naqaanaa 21 Oktoobar waa naqaanaa waxbarasho lacag la'aana caafimaad lacag la'aana dawo lacag la'aana ilaa jaamacad lacag la'aana iyo waxyaabo badan oo maanta ilaa maantadan taagan ayay samaysay wixii aaway marka zoomkan cashirkan waxaan filaynaa wasaaradihii aan hore uga soo sheekaynay ee ardayda iyo macallimiintaba ay sheegeen in maaragtay kolleyba wax un sameeyaan haddii kale dagaalka uu nagu socon marka dagaalka si uu nagu socon oo annaga aan u hor istaagno waa inaynu ku baraarugnaa arrimahaasi waa dhismihii dalkeenna waa dhismihii qarannimadeenna waa jiritaankeennii soomaalinimo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu